saaxiibaday maanta waxay aadeen meelo kala duwan. hebel fiir meeshu aaday dalxiisa maanta u bixeen oo maleynaa si aadeen hal sawirey soo galeen maanta xeebta layga aadeen miya hebela ku jira fiir hebela ku jira ay koraan wadaa sugbal way warniya oo saaxiibkay fiir asagana maanta maqaayad hebel isku jooga waxaa la yaabay aniga waxaa asxaabtayda markay dalxiiska aadayaan iga mashquuliyo shaqo iyo jambalaya mashquul ku ah dhibaatooyinkaas isku aragtaa calaamadaha noocaas oo kale noloshaada ku aragtaa dabcan haddii aad ku aragto wax adiga aad kaligaa tahay maahan waxaa laga yaabaa dadyo fara badan oo social media aad u isticmaala inay dhibaatooyinkaas kula qabaan waana xanuun ka mid ah xanuunada laga qaado isticmaalka faraha badan ee social media waxaana loo yaqaanaa FOMO ama fear of missing out oo macnaheedu yahay in qofka uu dareemo in baraha bulshada ay wax badan ku dhaafayaan laakiin asagana uusan qayb ka ahayn tusaale wuxuu qofka dareemayaa in asxaabtiisa iyo dadka uu ku xiran yahay ay dalxiis aadayaan damaashaad aadayaan maqaayado kala duwan aadayaan safarro aadayaan laakiin asagana uusan qayb ka ahayn sidaas la mid ah wuxuu qofka dareemayaa haddii saacado ama waqtiyo kooban uu ka maqnaado social media ama internetka inay xog fara badan ku dhaafayso taasoo ah runtii wax qofka uu asaga iska dhaadhiciyey laakiin aanan sax ahayn xanuunadan dabcan maahan xanuuno hore loo ogaayo ka mid ah cudurrada adduunka ka jira laakiin waxay la soo ifbixeen socoshabixi iyo soo ifbixi isticmaalka baraha bulshada oo qofka dareensiinaya inuusan ka maqnaan karin internetka haddii ay dhacdo inuu ka maqnaadana ay keenayso ama uu dareemayay wax badan meeshaasi ku dhaafayaan taasaa marka waxay keentay in dadka badi uusan ka maarmi karin isticmaalka telefonkiisa ama computerkiisa waxaa laga yaabaa inaa aragto dad telefonka isticmaalaya xilliyada ay cuntada cunayaan dadka qaar laga yaabaa markuu jiifanayo telefonka isticmaalo dadka qaarna waxaaba laga yaababa inay suuliga telefonka ku isticmaalaan oo marnaba aysan ka maarmi karin haddii dabcan aad isku aragtay xanuunada noocaas ah waxaad ku qasbana dabcan inaad noloshaas aad bedesho haddii aad isku arkinna dabcan waa sidii la rabay sidee ku bedeli kartaa marka waxaad ku bedeli kartaa inaad u guurto FOMO cagsigeeda oo ah JOMO oo iyadana loo yaqaano joy of missing out oo ah in qofka uu dareemo ama iska dhaadhiciyo in ka maqnaanshaha baraha bulshada aysan waxba ku dhaafaynin taasoo runtii ah midda saxda ah sidee marka ku gaari kartaa inaad dareento in social media uusan waxba kugu dhaafi karin dabcan waxaa jiro farsamooyin fara badan oo qofka isticmaali karo uu ku yareyn karo ama ku xakameyn karo isticmaalka faraha badan ee social media waxaa ka mid ah inaad waqti go-an u sameyso isticmaalkiisa oo maalinkii saacado ka mid ah aadan isticmaalin social media tusaalahaan 2 saacadood 1 saacadood ama 3 saacadood eeba sidaas la midana aad na aqbasho ama iska dhaadhiciso in ay wax ku dhaafi karaan waa normal waaye khasab ma in wax walba adduunka ka dhacaya qayb ka ahaato marka aamin naftada ka dhaadhici inay asxaabtaada meel aadi karaan safri karaan dalxiisi karaan maqaayado tagi karaan adiga aad maalinkaaga meel tagi karto waqti soo qaadan karto asxaabtaadana la soo caawin karto iyadana waxay qayb ka tahay in qofka uu dareemo in waxa xiriiriisa ka dhacay ay dhici karaan asaga la'aantiis laakiin haddii aad isku qunfusho in asxaabtaada ka tageen meel aadin adiga aan qayb ka ahayn dabcan xanuunkii waa kugu soo ziyaadaya ilaa heer aad gaarto nafsadaadii aad doorto ama noloshaadii aad doorto waa mahadsantiin asxaabta waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan insha allah asxaabtaadana aad la wadaagi doontid xanuunkii FOMO aad u bedeli doonto wax loo yaqaano JOMO oo ah inaad dareento in internetka ama social media aysan waxba kugu dhaafaynin taasoo ah midda saxda ah ee laga rabo qofka inuu sameeyo thank you